السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة بعد waxaan rajeynaa insha Allah inaan halkan soo geliyo 10 ku saabsan ama barnaamij ku saabsan organizational development toolkit-kii inoo socday ee tababarka ahaa. Waxaan hore soo baranay job description-ka boardka. Waxaan soo baranay boardku muxuu yahay iyo muxuu qabtaan. marka isagoo faahfaahsan oo sidii ka yar faahfaahsan oo document aan ka diyaargareynay baa jira. sidoo kale horta waynu baranay boardku inuu yahay waxaan loo yaqaano policy makers ama ururku inuu policy makers u yahay. sideed qodobna hore waan soo sheegnay oo ah waajibaadkiisa. marka board members job description-ka mararka qaar hay'adaha ama NGO-yadu waxay sameeyaan boardka waxay u sameeyaan contract oo GA inta badan ay soo alifkeeda iyo fikradeeda leeyihiin. marka boardka heshiis baa laga seexaya inta xilka ay hayaan. waana imka casrigan dambe loo sii guuray. beriga hore boardku iyaga cid wax ka saxiix jiray, iyaga si doonaa hawshu maamuli jiray, iyagu ma shirweynaha qaban jiray. laakiin ka waxa jira in la yiri hala limit gareeyo as a contractee ama si volunteer oo contractee ha loola galo ama contract ha loola galo. marka waxa sax loo yaqaano si shaqaaluhu u lahaa job description ayay boardku job description leeyihiin. marka board job description-ka aynu maanta halkan labaad sii xoojinayno waxaa ka mid ah aynu fahmayno approve the organization's mission and review management team's performance in achieving it. waxaa kaloo ay ka mas'uul yihiin baa la yidhi inay missionkii ururka maadaama ururka staff vision mission leeyahay in missionkii iyo visionkii labadaba iyo dhammaanba shaqadii ururka markaa ay iyagu ay maxaa la yiraahdaa ansixiyaan oo sameeyaan. waxaa kaloo ka mid ah annually assess the ever changing funding programmatic environment and approve the organization's strategy to be responsive. waxaa kaloo ka mid ah waajibaadkooda inay si sanadle ah u qiimeeyaan isbedelka iyo dhammaan dhinaca programyada ama shaqooyinka environment in the areas ay markaa ka shaqeynayaan. si markaa sidoo kale ay wax uga qabtaan ama iyada laftigeeda ansixinteeda u eegaan oo hubiyaan waxaa loo yaqaano istiraatiijiyadda inay tahay mid responsive ah oo responsive marka laga hadlayo shaygaasi inuu istijaab ku yahay ama istijaab ku yahay maxaa wixii loogu talagalay ama halkii loo socday direction-kii ma yahay mid waafaqsan markaa ka jawaabaya baahida ummaddu inoo soo gudbisay maadaama NGO community u adeegayo baahida markaa in markaa ay ka turjumayo. waxaa kaloo ka mid ah boardka job description-kiisa kale annually review and approve the organization's funding balance. every organization, every actor, every group waxay leeyihiin balance. marka sanad kasta waxaa la dib loo eegayaa loo qiimeynayaa maxaa ururka achieve gareeyay, maxaa caqabad ka hor yimi, waxaasoo dhan dib loo eegayaa. marka balaanada ururka dib bay u eegayaan review garanayaan. review and approve the annual financial goals because urur kasta wuxuu leeyahay goals uu rabo inuu achieve gareeyo oo from le markaa certain point ka bilaabmo iyo meel la rabo inuu ku dhamaado goalkaasi. marka si sanadle ah ayay u eegayaan aynu qiimeynayaan goalskii markaa la set gareeyay. waxaa kaloo ka mid ah approve major policies siyaasadaha ururka maadaama ururku ku shaqeynaya policies ama operational policies they have to review sanad kasta siyaasadii baa loo eegaa waa la hufaa waa la shaandheeyaa wixii markaa dilqaaf inugu habaaba inta badan ama dilqaaf ururka habaaba dib looga saaraa wixii weaknesses keenaya laga saaraa wixii ka dhiman baa lagu buuxiyaa. taasina waa arrin runtii muhiima. waxaa kaloo jirta wax loo yaqaano organization xagga boardka marka laga hadlayo. waxaa kaloo ka mid ah arrimaha waxa soo geliyo kale elect, monitor, advise, stimulate, support, reward and if deemed necessary or desirable change top management regularly discuss with the CEO matters that are concerned to that person or to the board.
waxaa kaloo ka mid ah halkan wax badan baa la israaciyay qodobkan wax badan buu koobsaday waxaa la yidhi waxay soo magacaabayaan dabagelayaan qiimeynayaan la talinayaan taageerayaan abaal marinayaan haddii loo baahdo markaa top managementka dadka ugu sarreeya ururka madaxa sida agaasimiye oo kale iyagoo markaa arrintaasi boardku eegaya boardka laftiisu eegayaan waxaa kaloo ka mid ah annually approve the performance review of the CEO and establish compensation based on recommendations of the executive committee and board chair waxaa kaloo ka mid ah si sanadla ah in iyaga isagana u ansixiyaan shaqada ama u hubiyaan ama dib u eegaan shaqada qofka ugu sarreeya ururka iyadoo markaa la siinayo wixii markaa xaq uu lahaa ama xuquuq shaqaalenimo uu lahaa iyadoo markaa loo eegayo tala soo jeedinta ay soo gudbiyaan guddida fulinta iyo guddoomiyaha ururka kole qodobo dhowra baa jira oo runtii qoran oo way fara badan yihiin qodobadaasi marka inta kalena insha allahu indhaha qofku ama dadka inta badan documentska haysta ha mariyaan waxaa kaloo ka mid ah siyar wadi karo meelaha qaar determine eligibility for and appoint members of the to the board committees in response to recommendations of the executive committee boardku hadhow wuxuu si kala baxayaa guddiyo insha allahu saan rajeynayo guddiyadaas baa markaa iyaga laftigooda markaa determine garanaya markaa inay khaasatan weliba guddida fulinta inta badan go-aanmo badan qaata oo wax badan loo baahan soo jeedisa waxaa kaloo ka mid ah annually review the performance of the board including composition of the organizations and responsibilities si guudna boardka laftigooda way su qiimeynayaan oo shaqooyinka qabsadeen wixii looga baahnaayo o dhan ma achieve gareeyeen if they are achieved or not achieved waxyaabahan inta badan waa excellent waa ku qasab operations baa jira waxa la yidhahdo iyagana inta badan as a matter of shaqada board ku jiri karta waa laba qodob iyadana insha allah indhaha la mariyo audit baa jira audit ka garanaysaan audit waxa weeyaan baadhid NGO kasta baadhista kama maarmo gudihiisa iyo dibadiisaba haddii laga imanayo mar gudaha la isku baadhayo board laftiisa gudaha internal auditing system bay sameeyaan marna external oo cidda kula shaqeysa ama lacagta ku siisaa qof kuu soo diraysa ama company kuu soo diraysa companygaasi wuxuu baarayaa systemkaaga administrationkaaga financial policieskaga all kind of procedures kaad leedahay waana meelaha inta badan Soomaalidu iyo ururada Soomaalidu ku liitaan oo marka mashruuc la qaadanayo baa laga yaabaa in ururka carab yiraahdo audit aynu sameyno waxaan sameyno hadhow doonarka waxa laga yaabaa wax badan buu eegaya miisaanku ku saaraya sida shaqada bidii miisaanka loo saaro miisaanka loo saaraya waxa kaloo markaa auditka haddaan ka yar hadlo waxa weeyaan ensure that the board and committees are adequately informed for the financial conditions of the organization and its operations through reports or other appropriate methods waxaa kaloo iyagu markaa ay hubinayaan boardku gaar ahaan guddidu si wax ku oola xaaladda dhaqaale ee ururkaasi iyadoo markaa loo marayo in laga sameeyo riboodyo iyo waxyaabaha markaa ku habboon markaasi diyaar garaysan waxaa kaloo ka mid ah in ensure that published reports properly reflect the operating results and financial condition of the agency marka dee riboodyadaas waa la daabacayaa waxaana la eegayaa waxaa la daabacay inay yihiin wax ku salaysan natiijadii markaa dhinaca xaaladda dhaqaale ururka ama kambanigaba inta hadda siro guud labada qodob ka taabto taa qaybta ka taabto board members contract baa jira board members contractga waa anigi lahaa board practice waxbaa lala heshiis baa lala galaa markaa ururka la gelaya on behalf of the name of the organization wuxuu la gelaya contract to the board members ka shaqayn doona muddada intaa leh markaa boardka waxaa lagu talagalay in heshiiskaa lagu maamulo oo GA-ga iyo cidda kale stakeholderska haba ay markaa inshuur garayaan inay markaa boardku meet garayaan waxyaabahan looga baahan yahay marka halka waxaa la qorayaa board members contract marka la qoro name of the organization halka waa ururkii la geliyay contractka ay u shaqeynayeen inay xubnaha hayeen
marka tanna inta badan NGO-yada Soomaalidu sidanba ma sameeyaan laakiin dastuurkoodu baa ku qoran in badanaa waxaad moodaa major actor-ka ugu weyn ee NGO-da Soomaalida ka jira wax weeyaan in boardku yihiin kuwa furaha meesha bahaya wax bedela wax kala bedela marka wax inta badan tani waa muhiim waa caalami in board laftiisa shaqaalaha baa heshiis loola galo iyagana heshiis loola galo marka ciddii NGO-yaha aragta muuqaalkaygan macluumaadka noocan ciddii u baahdaan insha Allah hayga soo xiriiraan waan soo dirayaa cid kasta qof kasta u baahan macluumaadkan waan u soo dirayaa insha Allah waxaan soo raacinayaa WhatsApp-ka numberkan leenahay ayaan soo raacinayaa barta fariinta YouTube-kan marka haddaan intaa boardka sii wado qodobada boardka lagu baahay waxaa ka mid ah heshiiska lagula geliyo access to the xalayaan magaca ururka marka barta lagu qoro agrees to provide each member of the board with the following waxyaabaha ma looga baahan yahay access to the management of the organization as needed for proper operation of the board waxaa looga baahan yahay xubin kasta oo ka mid ah boardku inay qiimeyn karto ururka maxaa la yiraahdaa maamulkiisa haddii loo baahdo markaa oo ay qiimeeyaan markaa maxaa la yiraahdaa si fiican u qiimeeyaan boardku waxaa kaloo ka mid ah ample of notice of all meetings kulamada maanta boardku yeelanaya laftigooda iyo kuwa shaqaalu yeelanayaanba waa inay markaa ay ka wada warqabaan minutes of all board meetings waxaa kaloo looga baahan yahay shaqadooda in maxaa la yiraahdaa minutes ay sameeyaan shir kastoo galaan baa in wax laga qoraa notes laga qaadaa notekaasna waxaa loo yaqaanaa meeting minute baa la yaqaanaa ama minutes report baa hadhow laga dhigaya meeting minute kama kala qoro hadhow report baa loo beddelaya reportka waa la circulate garanayaa xubin kastoo boardka waa loo gudbinayaa xafiisku waa la fayl garanayaa si taariikhda iyo wixii laga wada hadlay ay u noqdaan wax record ah oo mar walba la heli karo anytime iyo xitaa mustaqbalka waxaa kaloo ka mid ah relevant information to conduct her or his job as board member qof walba markaa waa inuu haystaa warbixintiisa boardnimo si markaa isaga ama isaguba shaqada boardnimada ay u gutaan waxaa kaloo ka mid ah indemnification from liability of board members reasonable and necessary actions board markaa wixii markaa isku haleyn leh ee markaa Allahumma salli ala Muhammad la sababeyn kara ee markaa meesha dhexdeeda ka jirna waa in ahaada wax ay go'aankeeda iyo gacan ku haynteeda leeyihiin markaa Allahumma salli ala qodobada board markaa horna waa inagu soo baranay heshiiskoodu waa heshiis la geli karo in organization waxba lagu dari karaa waxba laga reebi karaa sessionka markaa intaa hoosna waa la seexayaa waxa seexaya maxay chief executive officer ka seexaya qofka agaasimaha guudka ah boardka ku xigaya markaa warqadaas saas u taalaysaa waxaan insha Allah u geli doonaa marka dambe next time-ka dambe haddii la ka dhigo board chair-ka shaqadaasna heshiiska lagu geliyo boardka laftigiisa waa gudoomiyaha heshiis baa lala sii galaa heshiiska la geliyana waynu insha Allah ka warrami doonaa waxaa kaloo iyaduna jirto boardku wuxuu yeelanayaa guddi hoosaadyo guddiyada badanaa inta badan la samaysto maxaa ka mid ah maxaa soo geli kara maxaa ka reeban guddaas maxay qabataa waxaas dhammaantooda qoran yihiin cidda muuqaalkan daawata fadlan hayga soo codsato inaan usoo diro insha Allah soo PDF aan soo diri doonaa guddiyada markaa waxay qabanayaan shaqooyinkooda insha Allah annaga sessionska dambe haddii la ka dhigo ayaan geli doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu WhatsApp-ka numberka haddaan afkana kaaga sheego hadhow aad muuqaalka dhammaysato waxa weeyaan 0634862926 asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sessionskan waxaan ugu talagalay ardayda tababarka ku jirta markaa aanu siina tababarka si iyagu markaa si close insha Allah aan uga shaqeysana hawsha wixii su'aalaha wixii tala bixinaa please iisoo comment garee barta qolka galaaska igu soo comment garee asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu